booqannay isbitaalka walaalaheen dawladda Imaaraadka ay ka dhistay magaaladan oo lagu daaweeyo dadka Soomaalida ah si oo maxaan ku iraahdaa lacag la'aan loogu daaweeyo waxa sidoo kale soo booqannay safaaradda oo ayadana muxuu ahaay aan ugu nimiday dhalinyarada ka shaqeysa safaaradda iyo isbitaalka iyo dhammaan barnaamijkaas isbitaalka oo soo aragnay oo ilaa 300 oo qof oo Soomaali ah maalin walba lagu daaweeyo waxay ka mid yihiin waxyaabaha waaweyn oo muxuu ahaa dawladda Imaaraadka Carabta ay Soomaaliya ay ka dhaqan gelisay dabcan kan kaliya ma aha mashaariicda horumarka ah ee dawladda Imaaraadka ay ka dhaqan gelisay Soomaaliya waa badan yihiin laakiin kan wuxuu ka mid yahay waa mid ka mid ah runtii 300 oo qof oo Soomaali oo nooc walba leh waxyaabo adeegyo caafimaad oo dalka hore uga jirin oo ay ka mid tahay dadka kaliyaha la oo kaliyahooda la sifeynayo oo maalin walba muxuu ahaay ama isbuuciiba maalin imaanayo maalin kasta ilaa 4 qofood oo kaliya dhaqidaas alla halkan laga sameeyo 300 qof oo caruur iyo haween u badan halkan lagu daaweeyo daawo lacag la'aan lagu siiyo adeeg aad iyo aad u weyn waayo oo aan doonayno inaan aad iyo aad ugu mahad celino dawladda Imaaraadka Carabta isbitaalka Sheikh Zayed bin Sultan la yiraahdo raximahullah isbitaalka magaciisa waa isbitaal runtii aad iyo aad u weyn oo macna badan ku fadhiyo ismo weyn oo hadda isbitaal kale aad u weyn oo ballaaran oo midkii hore ka ballaaran degdeg lagu dhisayna waa ka dhismihiisa qabyada aan soo aragnay asagana sanadka soo socda dhammaan doona marka waxaan rabnaa in aan halkaan horta guud ahaan dadka Soomaalida anagoo magacooda ku hadlayna Imaaraadka dawladda Imaaraadka aan u mahad celino waxaa kaloo rabnaa halkaan aan ku darnay baryahan dambe dacayado iyo maxaan ku iraahdaa been abuur iyo waxba socday la leeyahay dawladda Soomaaliya dawladda Imaaraadka Soomaaliya been waa arrimahaas sax ma aha waxba kama jiraan dawladda Imaaraadka iyo dawladda Soomaaliya waa laba dal oo walaalo ah waa laba dal oo saaxiibo ah si istaraatiijig ah saaxiibo u ah ma aha kaliya degdegi amuuro dawladda Imaaraadka waxay door weyn intii 20 sano dhibaatada ay ka jirtayna ay ka qaadatay dadka Soomaalida samafalkoodii ardadii ay dugsiga hoos u bilaabeen oo dhaqaatiir ah oo injineer ah ayaa maanta dalka jooga qaarkood isbitaalkan ka shaqeeyaan qaarkood isbitaalada kale ka shaqeeyaan injineer ah oo magaalada muxuu ahay wax ka dhisa marka waxaan rabaa ayadana in ay ka baxdo muxuu ahay dacaayadaas iyo propagandadaas iyo beentaas in meesha ka baxdo annaga iyo Imaaraadka Carabta laba dal oo walaalo ah oo ay ku nool yihiin laba shacab oo walaalo ahaanahay ma ahin dad muxuu ahaay muraado yar isugu yimid dad muddo fog maxaan ku iraahdaa saaxiibo soo ahay walaalo ahay haddana si ahaan doona hadii la yiraahdo marka booqashadana maanta waxa ugu muhiimsanayd adeegaas caafimaad oo ay maxaan ku iraahdaa loo haayo dalka oo walaalaheen Imaaraadka ay hayaan in aan soo booqano soo aragno la soconno intuu la eegay xaddigiisa waa mid labaad inaan dhiirigelino dadka naftooda soo huray noo yimid maxaan ku iraahdaa dhibaatada iyo duruufaha amni ee dalkan ka jira lafsadiisa maxaan ku iraahdaa u bareeray inay yimaadaan oo ay maxaan ku iraahdaa dadka Soomaalida iyo duruufaha ay ku nool yihiin ay la wadaagaan safaaradana waxa uu nimiday dacaayadaas iyo propagandadaas meesha bariyahan bal sheegay meesha inay ka baxdo oo cilaaqaadka labadan dal iyo labadan shacab wax si sahlan ku carqaladoobi kara ama ku kala go'i kara inaanay ahayn